howlahan oo isugu jira indhafiiqis baaris iyo daweyn caafimaad lacag la'aan ah ee loo sameeyay in ka badan 100 qof oo isugu jira rag iyo haween oo u badan dad da' ee ku nool degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa iska kaashanayay hay'adda Soomaali Foundation iyo hay'adda badbaadada aragga ee Geeska Afrika iyo isbitaalka takhasusiga ee Xalaal kaasi oo laga fuliyay xarunta isbitaalka Saacid degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe dadka ka faa'iideystay qaliimadaasi ayaa waxa kamid ahaa 2 wiil oo 8 sano jir ah oo kamid ahaa dadka indha la'aanta ahaa ee ka faa'iideystay indhafiiqista lacag la'aanta ahaa degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe qaar kamid ah dadka ka faa'iideystay ayaa u mahad celiyay howlahan indhafiiqista ah ee loo sameeyay maashan waxa ay keenay تأثير أو إن الله وحالنا ليري الحمد لله ضد الحمد دعيسن أو إلهي كرالي هي أيدين صوك هناي داوم معاونا أو إن رفيقة أو ومهد إلينا حيقول سدحان وحال يراها محمد أحمد محمود ماشان وحانو أمدي دباتو عافمات وحانو أمدي وحان مغلي إن رفيقة سو سعودة ضدن يرى أون قال كرنو تبالي سنانا إلهي أمر كيس إيو مارت ددال أي نوغو تمت gudoomiyaha degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe Muuse Maxamed Kile ayaa sheegay in baahi weyn loo qabay in la helo howlahan caafimaadka indhafiiqista ah ee loo sameeyay wuxuuna ugu mahad celiyay dadka soo qaban qaabiyay howlahani hay'addan Soomaaliya waxaan leeyahay soo dhawaada hay'adda waxaan idinka mahad celinaa waxa qabateen intaan bani aadam oo cuuriyaankeed indhaha aadan ugu faraxsanahay in wax idin qabsameen waxaan rajaynaynaa mar kale inaad soo noqotiin malaayiin aan dhannahay inta naga indhala ama naga xun Dr. Ahmed Mohamed Ali Halal oo fulinayay qaliimada indhaha looga fiiqayo dadka danta yar ee indha la'aanta ahaa ee ku nool degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ka hadlay tirada guud ee loo sameeyay qaliimada indhafiiqista lacag la'aanta rucaada oo ay ku deeqday hay'adda Soomaali Foundation 57 qofood ayaa xalay indhaha loo fiiqay mashruuca 100 qof loogu talagalay waxa ka hartay tiro kale oo insha Allah tacaala labada biro soo socota la fiiqi doono dadkan waxa kamid ah dad 12 sano indha la'aan waxa kamid ah caruur yar cunug yar oo 12 jir ayaa ku jira dadka indhaha loo fiiqay waxa kale oo jira cunug yar asagana ku dhashay indha la'aan oo 6 sano jiro oo labada indhood waxba ka arkeenin oo maaragtay suuxdin guud u baahnaa asagana mashruuca asagoo qayb ka ah ayaa loo wareejiyay xamar si suuxdin guud xagga loogu sameeyo daryeel fiican loogu sameeyo marka gobol kasto aan tagno dad tirada ka badan iyo dad 12 sano 20 sano indha la ayaan ugu tagnaa Cadale baahida waxa ka turjumay tirada dadka hor muuqda iyo dadka feelka ku jira ee u baahan mashruucan waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala dadka u baahan inay kooda faa'iido doonaan biidnillah Muuse Usmaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho